hogaamiyaha maamulka SSC Khaatumo Cabdulqaadir Axmed oo Cali Firdhiya ayaa dhagax dhigay mashruuca dayactirka iyo dib u dhiska cisbitaalka guud ee degmada Laascaanood. Mashruucaasi oo ay iska kaashanayaan maamulka SSC Khaatumo iyo dowladda federaalka Soomaaliya waxaana gacan ka geystay mashruucani dowladaha walaalaha la ah Soomaaliya ee Norway iyo Switzerland. Ugu horeyntii waxaa warbixin ka bixiyay mashruucani agaasimaha cisbitaalka weyn ee degmada Laascaanood Axmed Maxamed Xasan Foolshaawe. maanta ay tahay 25 bishii 7 2024 waxaa cisbitaalka guud ee magaalada Laascaanood madaxweynuhu noo dhagax dhigayaa dhisme cusub iyo dib u dhis iyo qalabayn runtii iska kaashadeen dowladda federaalka Soomaaliya maamulka SSC Khaatumo iyo hay'adaha caalamiga ah deeq-bixiyaasha caalamiga mudan madaxweyne dhismaha runtii waxa weeye waa dhisme aad muhiim u ah cisbitaalka iyo dhammaan SSC Khaatumo oo dhan ka bacdi markii cisbitaalka la duqeeyay burburan uu soo gaaray asiyabada maamulku uu diray waxa laga soo jawaabay in dhismahan qayb uu ka ahaado marka baahi weyn oo loo qabay dhisme kaliya maahay waxa ku jira qalabayn iyo casriyeyn marka insha Allah waxaan rajaynayaa bulshada SSC Khaatumo inay ka faa'iideystaan cisbitaalkan adeeg muhiim ah oo bixiya referral hospitalkina oo ah wasiirka wasaaradda caafimaadka maamulka SSC Khaatumo Yuusuf Salebaan Sancad ayaa u mahadceliyay dowladda federaalka iyo dhammaan deeq-bixiyayaasha gacan ka geystay mashruucani. maanta waxaan halkan ku dhagax dhignay dayactir lagu sameeyo cisbitaalka guud iyo dib u dhis iyo qalabayn kaas oo dowladda federaalka iyo maamulka Khaatumo ay fulinayaan waxaanu uga mahadnaqanaa deeq-bixiyaasha caalamiga ah ay ka mid yihiin dowladda Norway iyo Switzerland oo hawshan gacan weyn ka geystay aad iyo aad baan ugu mahadnaqanaa marka insha Allah waxaan rajaynaynaa waxaanu dirnay codsiyo badan oo cisbitaalkan lagu hagaajinayo qaybtii koowaad ee nooga soo jawaabtay bay noqdeen arintaana aad iyo aad baan uga mahadcelinaynaa. ugu dambeyntii hogaamiyaha maamulka SSC Khaatumo ayaa dhankiisa uga mahadceliyay dowladda federaalka ka jawaabistii dhawaaqa cisbitaalka degmada Laascaanood. maanta halkan waxaynu u joognaa munaasabadda dhagax dhigga mashruuc ballaaran oo ka kooban dib u dhiska cisbitaalka guud ee Laascaanood. dib u dhiska waxaa la socda qalabayn iyo casriyeyn waxaan rajaynayaa in shacab weynaha iyo bulshada SSC Khaatumo ay ka faa'iidi doonaan mashruucan isaga saaka laga dhigayo markaad eegto baaxadda mashruucu uu leeyahay iyo tayada intaba mashruucan waxaa fulinaya oo isku soo dubariday dowladda federaalka ah iyo maamulka SSC Khaatumo waxaana ku deeqay dib u dhiskan iyo qalabayntan iyo casriyeyntan cisbitaalka loo samaynayo dowladaha aynu saaxiibka nahay oo ay ka mid yihiin dowladda Norway iyo dowladda Switzerland iyo deeq-bixiyaal kale oo caalami ah. marka hore dowladda federaalka waa uga mahadcelinayaa dowrkeeda iyo kaalinka ay ka qaadatay ka jawaabistii dhawaaqii dib u dhiska ee hospitaalka saad ka warqabtaan hospitaalkan Laascaanood muddadii dagaalku soconayay waxaa jiray dhibaatooyin lala beegsaday oo runtii waxyeello weyn u geystay hospitaalka qaybo ka mid oo muhiim ah waa la dumiyay dad fara badan oo hawlwadanada ka mid ah waa ku dhinteen. Najiib Cabdillaahi warbaahinta qaranka Laascaanood.